ardaya iftiinka ana barnaw kusoo dhawo cashar kale casharkan waxaan rabaa inaan kugu sharxo sidaan u naqshadeynay kooraskani 12 isbuuc sanadkii ay qorsheynta macnaha sida sanadkaada markaas ugu qorsheysan leeyahay 12 isbuuc ayaan kaga hadal doonaa marka koorasku wuxuu ka kooban yahay 5 chapter iyo 22 cashar markaasi aan kugu soo diyaarinay habka ugu fudud oo ugu tayada sareysa fiir marka waxaan u qorsheynay in kooraskan aad ku dhameysid 2 week wiiga koowaad iyo wiiga labaad wiiga koowaad waxaan ugu talgalnay ilaa 3 chapter inaad dhigatid oo mid walban uu ka kooban yahay casharadiis halkan ay kugu dhigan tahay 3 cashar ee tahay chapterka koowaad 3 cashar ee tahay chapterka labaad 7 cashar ee tahay chapterka 3 wiiga labaad waxaan ku qorsheynay inaan chapterkan aad ku dhigatid oo dhaqangelinta ah chapter 5 iyo chapter 4 marka wiiga koowaad chapter 1 ka aad ku dhiganaysid waxa introduction iyo habka markaas xiriirka macalinka iyo ardayda markaas sidaad aniga ay la soo xiriiri kartid ama macallimiinta kale afooga aw xiriir kartid ayaan kugu sharxi doonaa sidoo kale sidaad koorskan ugu guuleysan doontid waxaan ku siin doonaa talooyin chapterka labaad hadaan isla tagno waxaan kaga hadli doonaa sidaad markaas aad ku bilaabi lahayd qorshahaada iyo midda koowaad casharka waxaan kaga hadlaynaa way maxay tahay sababtaan u dooranayno sanadka 12 toddobaad sanadkii way 12 toddobaad aan ugu dhigayna waan ku sharxayaa ay fikradda ka dambayso ee arinta meesha ka imaatay sidoo kale ceebaha qorsheynta sanadlaha ayaan kaga hadli doonaa sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa faa'iidada ay leedahay in qorshahaada 12 toddobaad aad ka dhigtid ayaan kaga hadli doonaa chapter 3 hadaan isla tagno waxaan kaga hadli doonaa sida wax aad qorsheyn lahayd لازم qofku u barto waa sida wax uu qorsheyn lahay anigoo ku tusin doona hab fudud adigoo hagi uu ku noqon doono buug yaraxaani adoo isticmaali doona marka waxaan kaga hadlaynaa xitaa waxa hiigsi uu yahay waxa gool uu yahay waxa uu yahay ficil waxa uu yahay markaas jadwaleen waxa uu yahay muraajaceen waxa dhibcaysiin ay tahay marka halaasi kule ayaan kaga hadli doonaa marka farsamada ugu wanaagsan adeegsan doona waxa waa si goolkaada ku dajisid smart goals anoo ku siin doona ilaa 4 tusaale ku siin doona hadii lacal arabtid markaas horumar inaad ka sameysid in diintaada haduu adeegsanay 12 toddobaad qorshihiisa waan kugu sharxi doonaa sidoo kale hadii lacal aad ina ganacsada guuleysta u baahan tahay 12 toddobaad sida qorsheen markaas u sameyn kartaa waan kugu sharxi doonaa lacal hadii arday aad tahay sidee aan u adeegsan kar doona ama u adeegsan kartaa u adeegsan kara qorshahani asina waan kugu sharxi doonaa sidoo kale hadii aad rabtid markaas inaad horumar ka sameyso caafimaadkaada asina adigoo qorshahan adeegsanaysa ayaan kugu sharxi doonaa marka afartaas dhinac ayaan kugu sharxi doonaa oo ah diiniga caafimaadka dhaqaalaha iyo waxbarashada afartaas janib ayaan tusaalooyin ka soo qaadanaa tusaalooyinku waa furfura waxaan isla tagaynaa higsi kadib haddana waxaan gool qaabka ugu dhigi lahaydaan kugu sharxi doonaa haddana waxaan kugu sharxi doonaa habka ficil ugu bedeli lahayd habka u jadwaleyn lahayd ficilkaada qaabka jadwal ugu sameyn lahayd ilaa ugu dambeyn waxaan sameynaynaa muraajaceen mar walba muraajaca ugu sameyn lahayd wixii aad soo degsatay yoolkii iyo ficilka aad sameysay ugu dambeyn sidaad dhibic isku siin lahayd dhibic siintana muhiim waa ilaa wax walba adduunyada hadda ku taagan dhibic la siiya arday markuu imtixaan garaay muxuu u baahan yahay in dhibic la siiyo 100 muu keenay 90 muu keenay maxaa waa abaalgudkiis waa adiga naftarkaada si diinta naftarkeeda waxa waa dhibic la siiya ka soo qaad maanta hadaa salaad kaligeed aan dukanay salaad jamaaca la dugto maxaa waa darajooyinku way kala duwan yihiin maxaa xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam bi 27 daraja ay ka fadli badan tahay marka kaligeed dukanaysa macna jamaaca laati 7 darajo waa taas ay ka fadli badan tahay marka taasan markaas aan ugu hadlayna habka adin qorshahaada dhibica isku siin lahayd tusaalooyin oo real life aan markaas kaga hadal doona chapter 4 aan isla gali doona had wixii dhan aragti u ahay aragtiyaan ka soo hadlayno sidee aan u practice garan doona anigoo buug isticmaalay buug yaraha aan markaas aan ku lifaaqnay course-kaani waxaan kaga hadlaynaa bag ugu horeeya oo ah vision muxuu yahay sidaan markaas u practice garan lahaa ama u dhaqan gelin lahaa sidoo kale bag yool aan kaga hadli doonaa sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa bag ficil sameynta sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa bag jadwaleynta sida ficilkeeda u jadwaleyn lahaa ilaa ugu dambeyn waxaan galeynaa toddobaadka 13aad ilaa 12 ka hadlaynaa toddobaadka 13aad maxaa sameyn doontaa taas ka hadlaynaa iyo bag dib u eegista wuxuu yahay sidoo bag dhibco isiinta iyo baga journalinka macna qofka inuu journaling uu sameeyo oo ah noloshiisa markaas inuu ka hadlo 6 isbuuc waxay u soo qabsamay ama 12 isbuuc waxa uu soo qabsamay kulli qaabka ku sameeyay ayaan kaga hadlaynaa ilaa ugu dambeyn waxaan ku siin doonaa chapter 5 oo ah gabagabo ama talooyin ku siin doonaa ama dardaaran guud ah waxaan rajaynayaa in course-kaani haday aad dhigatid ana practice gareysid in qorsheen wax la dhahayo aad si fiican u fahmi doontid aadna ka walwali doonin sanad walba in qorshahaada uu guul dareysto marka aadan kula talin lahay in aad course-kaani wax ka dhigato ama wax ka baarto waxyaabaha halkan aan kugu sheegay hadaad rabin inaad dhigin hadaa course-kaani waxyaabahan hadda halkan aan kugu sheegay in barbar markaas insha Allah waxaan rajaynayaa inaad gaari doontid yoolalkaada
guul ayaan ku rajeynayaa.